بربرا بربرا بطلالة بيتش وبشارة رنتي بربرا وعصبة وبري بشارة ونكسن إن بدن بي ضيعنا ذي وبطلالة برتا اسمها وكسرة بربرا بطلالة بيتش إلهي بوجود دقي بربرا بدكن بيتش ونكسن ciid weliba ka sokayso aad u wanaagsan dir laga beeray iyo quruxda rag uu tabcay aan bilaabe cabdulqaadir cali baasa waa ninka dhinacayga fadhiya ayaa fikradda ilaahay ku dhali dhulkaa baaxaddaa leh ee u qaybsan dhismayaasha macaganjeelii ku xidhaya iyo daaradoodii isaga tacabkooda lahaa bal waxaan jecelayaa noo waraysta cabdulqaadir cali baasa waxa ku dhaliyey inuu mashruuca halkaa ka dhiso dalxiiska ah dhismaha intaa leega muddo badan ayaan rajaynayaan ku tala jiray in berbera baddeeda wax laga qabto bad ballaaran bad nadiifa bad caafimaadka iyaga iyo dalxiiskeenaba u roon muddo badanaan ku fikirayay muddo badan ayay nagu qaadatay goor dambe ayaan hawshaas hirgelinay maantay noo soo dhowaatay maantaan ilaahay idankii ku dhownahay riyadii muddo badan nagu jirtay anaa hawshaas bilaabay anaa hawshaas isku dabariday rag badanna way soo dabagaleen ragga ila qabtay ilaahay idankii waxaan rajaynayaa in ummadoo idil ay u noqoto meel caafimaad ay u doontaan meel ay dalxiis u doontaan meel ay kusoo kifaaxaan kusoo dhowaada batalaale iyo berbera cabdulqaadir cali baase mashaariicda uu ka fuliyey somalilan uguma horreyso tan hadda aad daawanaysay cabdiqaadir ragiise maxaad ka dhistay waxaan bilaabay 2000 aan horta waddanka soo galay waxa igu horreeyay aan mashaariic ka bilaabay waxay ahayd beera ku yaallo gabiley aynu muddo badan ka shaqaynay aynu jeclayn in waddanka saliid lagu sameeyey aanu ku cunno waqti badan ay ku qaadatay tijaabooyin fara badan ayaanu samaynay taa waxaa ku xigtay hargeysa gudaheeda isbitaal weyn oo maanta caan ah oo la yaqaan oo qoladii kuwait degan tahay oo ku yaallo dhinacaan masallaha ama aeroboorka nin walba siduu u yaqaan isbitaal aad u ballaaran oo mashaariic ballaaran laga bilaabay kaana anaa sameeyey anaa ku fikiray muddan hawsheeda ku jiray alxamdulillah kiina meel wanaagsan oo maanta noo maraya ilaahaydakii batalaale way ku habboonayd mashruuca qof kasta xaq buu u leeyahay meeluu ku nasto inuu helo ku soo dabaasho xeeb isagii carruurtiisu ay tagaan oo weliba jeebkiisa uu kari karo waa mashruuca danyarta loogu talagalay weeyey ee ay badda ilaahay siiyey ay dalxiis ugu tegi lahayd waa adiga daawade intiina waxaysa qof hiil iyo hooba laga sugayaa waa idinka ku darsada mashruuca hantidiinna ka qayb qaata dhismaha dalkiinna garab siiya cabdilqaadir iyo maxameda inta la mid ah waa intiina kale ee iyana u baahanna waxaa leeyahay haddii aad hibanaysay ood u baahnayd halkii dalxiis aad u tegi lahayd ha moogaanin runtii waa halkaa lafteeda uu cabdilqaadir dhisay iyo berbera batalaale beach waxaad iga warantaa cabdilqaadir himilada meeshanaad ka leedahay ee fogi maxay tahay bismillah ilaahay idankii midna waa ku talagalka bini aadanka midna waa tii ilaahiya niyaddayada waxay ahayd in meel ummadda oo idil somalilan isugu imaan karto meel
ha noqoto dalxiis, ha noqoto caafimaad, hawo gedis, dhinac walba ha noqotee qofka bini aadanka uu ka dhowaan karo badweyntan oo ku nasan karo badda cas. waa riyadayada ilaahaydankii in meesha ay hirgasho, in horumar la yaqaan berbera ka soo baxdo, in ummadda ay nala garato, nolol wanaagsanna meesha ay ka dhalato. ilaahay baan ka rajaynaynaa. waxaad Cabdulqaadir noo raacaysaa balbaaxadda dhulkan iyo waxaanu aragnaa dhismayaashiiyo ganjeelo ku taagan yahay, inta guri ee ganjeelo ku taagan yahay iyo baaxaddiisu intay leeg tahay iyo tilmaanta dhulka halku ku yaallo. dhulka kani haddaan tilmaan guud ka soo qaadano, waa dhulka ka soo sokeeyo hoteelka la yaqaan Mansoor. dhulka kani wuxuu ka kooban yahay 48 bolood. boloodkiiba yahay 80/60 ama 24/18. aqal kasto si gaar u taagan yahay, wadooyin gaar ayaa tago, 8 wado ayaa xiriirinayo guryaha iyaga ah. meel tilmaanteeda fududahay weeye. Mansoor intaadan gaarin dhulka iyaga ayaa dhinaca ku haya, baddina way naga soo horjeedaa.